ورحمة الله وبركاته. أخيركم على واحد كريبتو كسر هذا ولكن محمد جامع وحدونا إن شاء الله تعالى إن كها ضمانته إكسشينج كأوكي إكس وأنا إكسشينج صراحة آدي أدونا إكسن وحلمي هي باينانس يا كوكوين إكسشينج هذا كلا عن كأ إكسشينج كأوكي إكس أنا وحلق لي وطن كتشاينا يوسر هذا أنبضت كاستعمالا وحجاريان لباتم مليون وقف فيديو قلنا وندول الساق نقاب كمارت اللي سودي وانجليو يا واحد وبهانتي إن تكوجات إن شاء الله تعالى إكسشينج كا أقدر نقول عصبتي وحكاعد صنيا لايك سبسكرايب بالكايرنا halkaad ku aragtid bro insha Allah taala si wax walba cryptocurrency ku cusub amba update-yada kala duwan aad ugala socotid channelkayga insha Allah ta kale exchange kan waxaan arkay oo anfacayo walaalaha wadanka jooga taasoo aan uga baahnayn maartay wax verification dheeraada oo sida exchange-da kale sida Binance iyo KuCoin iyo kuwa kale ay ka dalbadaan dadka kaliya wuxuu kaaga baahan yahay inaad level 1 adapted taasoo macluumaadkaaga meesha ku nooshahay arrimaha yara basic ah ku weydiinayo dowda khayarta mar labaad inuu soo laabnay insha Allah sharxiga ayaan dul istaagnaa ee qaabka la isu diiwaangeliyo waxaad u baahan tahay marka hore inaad u soo degtid comment section ka videoga exchange ka OKX iska diiwaangeli linkiga halka aad ku aragtid ayaad taabanaysaa kadibna wuxuu ku keenayaa website-ka waa inaad ka taxadirtid linkii ku jira Google-ka inaad ka soo gasho waayo iskaamarada ayaa badan imaka oo waxaad helaysaa marmar exchange-yo iskaamaro exchange-yada magacooda intay qaateen oo ayagu maartay information-koodii iyo waxoodii typical ka dhigay sida exchange-ka oo doonaya halka in dadka maartay ku dhacaan xogtooda marka comment section-ka kaalay commentiga ugu horeeya ayaan ku hoos qorayaa linkiga exchange-ka insha Allah taala markaad furtid qaabkan uu kugu furayaa kadibna information-ka waxaad gelinaysaa email-kaagii password-kaagii kadibna waxaad oranaysaa sign in waxaana muhiim ah hadii jeer inaad iska diiwaangelisid exchange-yada adigoo isticmaalaya email weliga numberka ku isticmaalay markaad iska diiwaangelinaysid exchange-yada markaad iska diiwaangelisid exchange-ka waxa ku soo dhacaya koodkana email-ka ka helaysaa wad qaadaysaa waxaad ku tuuraysaa exchange-ka kadibna interface-ku waa caynkan oo halka waxaad ka arkaysaa exchange-kii dhinaca bidixda dhinacan kalena waa wallet markaad coin-ka aad iibsanaysid na waxaad halkan ka iibsanaysaa hadad haysatid maartay card-ka mastercard-ka amba fiisaha waxaanan advice-ka amba nasiixada halka ay naga siin lahaana waxa weeye Premier Bank insha Allah taala hadad ka heli kartid card-ka fiisaha iyo mastercard-ka insha Allah ku try gareeya inaad kaga iibsataan coinan exchange-ka dhexdiisa halkan waa discovery market-ka mar walba aad tagaysaa marka doonaysid in market-ka aad wax ka eegtid dhinacna waa trade-kii halka waxba la maartay laga bedelaa coinanka markaad isku bedelaysid dhinacna waxa weeye basic trading margin trading bot iyo block trading ka saddexda walaalayaal ka taxadura iska ilaaliya qaab riba ah iyo xaraana weeyaan marka insha Allah taala marka trade gareynaysaan waa inaad isticmaashaan mar walba spot dhinacan growgana asna waa xaraan saving haday tahay staking stable coins fixed income dual investment flash ka waxaas oo dhan waa xaraan loan kan xitaa waa xaraan oo waxaad ka qaadanaysaa maartay ama exchange-ka kaasoo nisbada fara badan oo riba ah ku saaranayo si uu ka faa'iido marka mar walba iska ilaaliyo ka taxadura adigu waxaas oo dhan marka soo eegtid waa platform-kii waa safxadii ra'iisiga ahayd halkan ayaad imanaysaa marka mar walba waxaad imanaysaa my assets marka taabatid saas kuugu soo saaraya safxadaadii ra'iisiga ahayd tan waa wallet-kaagii marka doonaysid inaad deposit aad ku soo samaysid amba lacagta exchange to exchange haddaad ka soo xawilaysid halkaas taabanaysaa kadibna coin-ku wuxuu iyaba dooranaysaa imka cryptocurrency marka la joogo hadii jeer waxa la isticmaalaa USDT marka taabatid kadibna wuxuu ka dalbanayaa shabakada aad ku soo xawilaysid dooro mar walbana waxa ugu jaban oo had iyo jeer la isticmaalaa USDT TRC20 marka mar walba waa muhiim markaad coin-ka aad dooratid inaad shabakada xawaaladaas ay dhex marayso waa inaad si wacan u dooratid insha Allah taala continue baan oranna kadibna message-kaas ku soo dhacaya information-ka maadaama imku account-ku new yahay halkaas ku soo saaraya skip bad oranaysaa kadibna account-ka lacagta ka soo xawilaysid ayaad maartay aad u diraysaa wallet-ka dhinaca kalena marka exchange-ka kale aad tagtid waxaad oranaysaa amba waxaad tagaysaa qaybta withdrawal-ka halkaas aad gelinaysaa address-kan markaad copy gareysatid dhinaca markaad ka soo xawilaysidna waa inaad iska akiidid inuu yahay TRC20 kadib lacagtu marka ku soo dhacdo waxaad sugaysaa ilaa 2-3 minutes marka ku soo dhacdo funding account-kaagaasi kugu soo dhacaysa oo halkaas aad ka helaysaa lacagtii halka hoosena waxaad ka helaysaa USDT waxa weeye مثلا $10 ku soo shubatay $50 ku soo shubatay marka doonaysid inaad trade aad ku samaysidna waxaad tagaysaa qaybta transfer marka tiraahdid halkan aad ka dooranaysaa ugu horeeya lacagtu noocay tahay haday tahay Bitcoin haday tahay Ethereum laakiin maadaama lacagta
tii USDT ahayd aynu kusoo xawilinay accountkeena waxaan odhanaynaa transferka USDT baan doonaya inaan ka xawilo funding account to trading account marka labadii account baad isku bedelaysaa waxyaabaha haddaba ugu faa'iidada badan ee aad ka helaysid exchange-kan OKX waxaa ka mid ah switch account qaybtan switch account la yidhaahdo oo laba account ayaad samaysan kartaa exchange-ka dhexdiisa marka mid waxaad u bixin kartaa primary account kan kalena waxaan samaysanaynaa mid ah secondary account marka halkan wuxuu iga dalbaday imaka mobile-kayga inaan ku xidho iyo Google Authenticator-ka intaa markaad soo dhamaysid wuxuu kuu furayaa qaybta account kale inaad ka dhex furan kartid exchange waana saraxatan arrin aad iyo aad u wacan oo OKX ay kaga horeysa exchange-yada kale haddaynu nimaado qaybta trade-ka ee qaabka trade-ka looga qaato suuqan waxaynu imanaynaa discovery markets-kanu taabanaynaa markaad market-ka aad timaadid mar walba waxaad timaadaa qaybta ugu sareysa ee spot-ku ay ku qoran tahay halka ayaad markaa ka trade garaynaysaa halkana waa muhiim inaad ka dhigtid USDT marka taabatid wuxuu kuu soo saarayaa beerarka la mataanaha ah USDT-da مثلا imika waxaanu doonaynaa inaynu trade garayno BTC USDT markaynu taabano wuxuu noo soo saarayaa interface-kii amba page-kii wax lagu iibsanaya ayuu geenayaa markuu safxadan kuu furo had iyo jeer waxaad isku hubisaa haddana inuu kuu joogo areadan spot halkanna waxaad ka gashanaysaa macluumaadkii مثلا bitcoin-ka hadda doonaysid inaad ka qaadasid $20,000 halkaasaad ku qoranaysaa 20,000 amount-ka bitcoin-ka uu ku siinayo amba jajabka bitcoin-ka ah oo la yidhaahdo Satoshi inta midhow ku siin karo halkaasaad ku qoranaysaa kani waa limit-ka marka doonaysid isla markiiba inaad suuqa areada uu marayo aad ka gashidna halkaasaad taabanaysaa qiimaha lacagta aad doonaysid ku qaadatid ayaad gelinaysaa مثلا waxaan odhanaynaa for example haddaynu konton soo xawilnay $25 igu iibi hadhowna waxaad taabanaysaa buy markaasuu kuu iibinayaa confirm baad odhanaysaa saasaad u iibsanaysaa arrinta kale uu ku wacan yahay OKX waxaa ka mid a qaybtan asset-ka haddaynu nimaadno dusha sare halkaa ugu dambaysa haddaynu nimaadno waxaad ka helaysaa demo trading oo qofku intaanu suuqa aanu gelin ayuu tababar ku qaadan karaa uu xogtiisa iyo wixiisa maaragtay halkaa uu ku baran karaa insha Allah tacaala dadka intooda badan maasha Allah way yaqaanaan qaabka maaragtay loola tacaamulo exchange-yada iyo qaabka la isu diiwaangeliyo exchange-kan try gareeya ka warkeena insha Allah tacaala waxaan hubaa in exchange-yada kale aad ku jirtaan qaarkood inaad iska daynaysaan oo insha Allah tacaala aad la tacaamulaysaan exchange-kan aad iyo aad baad u mahadsantihiin akhyaarta maanta intaasayni hay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh